wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland oo kaashanaysa hay'adda Save the Children ayaa deeqda waa soo gaarsiisay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Carmo sida ay mas'uuliyiinta iyo hawlwadeenada xarunta hooyada iyo dhallaanka degmada Carmo u sheegeen TV-ga dowladda Puntland. Dr. Fatima Cabdullaahi Cartan waa maamulaha caafimaadka degmada Carmo waxaana ay TV-ga dowladda Puntland u sheegtay in deeqdan dawada ay soo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland oo TV-geedii maanta uu nooga shaqeynayo degmada Carmo taasoo aanu ka faa'iideysanayno wax kasta oo wax weeye degmada Carmo ay insha Allah horumarkeedu rabo in lagu soo tiriyo markaan ka soo wareego arinta MC daawada waxa la siisay qolada wasaaradda caafimaadka iyo Save oo la shaqeynaysa waxa mahad iska leh Save taasoo noo keentay daawadii ugu horeysay oo aanu ku shaqo gali lahayn daawadaas oo maanta aanu dhignay hadda aanu ku jiro farmashiga MCH-ka degmada Carmo tayadeeduna aad u fiican tahay tiradeeduna aad ay u badan tahay waxaan rabnaa insha Allah inay ka faa'iideystaan bulshada reer Carmo iyo nawaaxigeeda taasoo ay faa'iido tahay daawo dhameystiran iyo shaqo aad iyo aad carcarteeda u wadata oo ka socota MCH-ka degmada Carmo sax weeye horta waa saad u aragto MCH-ka hadda waad joogtaa shaqadiisuna soo socoto waa aragtaa markaan u soo wareegto xagga shilalka waxa jiray shilalka ka dhaca degmada Carmo iyo nawaaxigeedu inay aad u tiro badnaayeen kaasoo markii hore lagu daaweyn jiray MCH-ka degmada Carmo laakiin maanta cisbitaal la furay oo xagga cisbitaalka la geeyo daawo abeeso uu noo keenay ninka la yiraahdo Dr. Yusuf khayr Allah siiye baan ku bixinaa MCH-ka degmada Carmo haddeer aad joogto waxa jiifta islaantaas waxay leedahay uur 6 bilood ah saaka waxa soo qaninay abeeso xaaladooduna aad iyo aad ayay u fiican tahay markay mahad Ilaah ba iska leh Dr. Yusuf khayr Allah siiyo arinta isaga nagu caawiyay marka aanu soo wareego xaaladaha kale oo aan ka shaqeeyo MCH-ku hooyo iyo dhallaankan u adeegnaa markii hore waxa jirtay in aan wax nacam hay'ada oo hoostagay MCH-ku aanay jirin laakiin maanta faa'iido waxa ah Save Children baa qaadatay shaqadana sidaad aragto moralkuna waa dhisay maanta shaqaaluhu u shaqeynayaan waa ku muuqata marka xiga waxaan u mahadcelinayaa TV-ga dowladda Puntland gaar ahaan waaxdiisa degmada Carmo iyo shaqaalaheeda sida u jeedaan waxaan joognaa oo hadda dhex taaganahay farmasiga MCH-ka degmada Carmo waxa halkan hadda aanu saaray oo ka muuqda daawo na soo gaadhay waqti dhow hadda muddo 5 bari oo leyd oo aanu furay kuna bilownay dadweynaha daawadani waxay ka kooban tahay isugu jira atama aad u fara badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee daawooyinka kuwaas oo idinka muuqda halka aanuna u saaray sidii ay u kala mudnaayeen ama u kala habaysnaayeen wixii antibiyootiga gaar baan dhignay wixii antibayna gaar baan dhignay wixii fitamiina gaar bay yaalin wixii haddii Ilaahay idmaayo sababkiisa oo shilalka iyo faashadooda gaar bay yaalin daawadani waxay wax badan ka tari doontaa caafimaadka dadweynaha degmada Carmo oo aad baahi weyn ugu qabay muddo dheer waayo daawadan oo kale ma aanay iman marna waxaanuna ka helnay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda Save Children daawo cusub waa daawo tayo leh waa daawo quality tiro iyo tayo ahaanba ay aad u wanaagsan tahay deeqdan dawada ah ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ay soo gaarsiisay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada Carmo ayaa imaanaysa xilli wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ay kormeero badan ku martay deegaanada Puntland iyadoo u kurgalaysa xaaladda caafimaad ee deegaan kasta oo ka tirsan deegaanada Puntland Maxamed Barre Saciid Maxamed Dadaal TV-ga dowladda Puntland degmada Carmo ee gobolka Bari.